waxaa sanadihii ugu dambeeyay si lixaad loogu soo badanayay guud ahaanba gayiga Soomaalidu degto gaar ahaan gobolka Togdheer geedka Garanwaaga oo isagu 24 sano ee ugu dambeeyay ku soo kordhayay gobolada Soomaaliland ayaa dadweyne beeraley oo ka tirsan gobolka Togdheer ay cabasho xoogan ka muujiyeen dhibaatooyinka uu Garanwaagu ku hayo beerahooda iyo bilicda magaalada Burco iyagoona sheegay inuu biyaha ka qaato saraca ay beertaan halkaasna ay ku qalalaan dhirtii iyo khudradii kala duwaneed ay beerteen haddaba waatan mid ka mid ah beeraleyda oo TV-ga caalamiga Samsa TV uu ku booqday beerteeda insha Allah magacaygu waxa weeye Xuseen waxa dhirtan beertay beerahan le ayaan ma garanaysaa beeraha aanu sarcanaynay sarci beeraha waxa naga qalajiyay geedkaas oo xilibkiisu biyaha ka nuugayo geedkii lagu dhex agtiisa lagu abuurana uu isagu qaadanayo nafaqadiisi biyaha qaadanayo isgeedkiina qalalayo naaqusayo Garanwaagiina uu hawrayo sida uu hawrayo uu hawraa arkaysa naaqusaysana geedkiina qalalayo agtiisa marka magaraysa uu ka baxo marka waxaan codsanaynaa badee in wixii uu awood u lahayd geedka ka qaban kara waan jecelahay in wax laga qabto geedkaas dhinaca kalena waxaanu la kulanay qaar ka mid ah dadka xaafadda shacabka oo sheegay in geedkani uu ku hayo dhibaatooyin xoogan iyagoo tilmaamay in qodaxdiisu ay tahay sun sida darteedna ay tahay bay yiraahdeen in dawladdu ay wax ka qabato wadanka aad u dhibay dawladdu waxa ka codsanay geed Garanwaaga inay naga tirtirto wadanka dhibaato weyn ku haya qodaxdiisuna waa sun oo qofka muddo waxa ku dhibaato weyn ku haya oo sabsbaar ka kale marka waxaan rabnaa dawladdu waxa ka codsanay fadlan geedka Garanwaaga waxaan ku naga wadanka tirtiray ka dhameeyay iyaga dawladdu wax qaban kareen asan dawladdu ka codsanayna geedka Garanwaaga aad buu dhibay waargeed aad u xun waxaan ku dhibaato weyn ku soo kordhiyay nabad gurbu ku soo kordhiyay qodax buu soo ku soo kordhiyay marka waxaan doonayaa dawladda waxaan ku geedkaas si dhaqsan waxaan nooga dhamayso naga tirtirto qaar dawladdu waxay bixisaa mashruuciyo ay ku cirib tiriso geedkan Garanwaaga ma idin soo gaadha mashruucaas ma mashruucaas wali nagu soo gaadhay aad baan Garanwaaga noogu badan yahay waan gartay maxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn sida surmada oo kale uu xidhay wadooyinka uu xidhay oo kale maxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee xaafad ahaan aad dareentaan walaal wadooyinka aad buu nooga xidhay dhibaato weyn uu leeyahay maxaan ku dhahay suu waageed soo wuxuu gaadhana aad buu maxaan ku dhibaato u soo gaarsiiyaa ugu dambeyntii maxaad ka codsanayd cid kasta oo khusayso inay ka qabato cid kasta oo khusayso dawladda cid waxaan ka codsanay geedkan naga dabarsanaan naga gooyaan ay naga dabarsanaan geedka Garanwaaga ee dawladda ka codsanay mana jirto cid haba yaraatee gacan ka geysatay dhibaatooyinka la taaban karo ee uu geedkani ku hayo bulshada beeraleyda gobolka iyo bilicda magaalada Burco marka laga reebo mashruuc ay dawladda hoose sanadii la soo dhaafay ka fulisay meelaha qaar geesta kalena maraanu booqanay meelo xasuus u leh dalkani Soomaaliland oo ay ka mid yihiin gurigii lagaga dhawaaqay goonisutaaga Soomaaliland ayaa iyagu qaar hooy u noqday burbur badan iyo geedka Garanwaaga mana jirto talaabo ay qaadeen dawladihii dalka u kala dambeeyay walow ay fooda inagu soo hayso 18 May oo iyadu maalintii goonisutaaga Soomaaliland si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay ee ay dadweynaha gobolka Togdheer cabasho ka muujiyaan geedka Garanwaaga mana jirto cid ka jawaabtay sida ay TV-ga caalamiga Samsa u xaqiijiyeen dadkani isku soo wada duubo xilligan ayaa ku soo beegmaysa waqti ay roobab lixaad ka daayeen gobolka Togdheer waxaana meelaha qaar buux dhaafiyay xashiish iyo geedka Garanwaaga laki aadan Yuusuf laki Coraaf telefishinka caalamiga Samsa Burco